wixii ka dambeeyay 2021 inanteeda ay ku dhimatay 7 bilood banaanka ay wareegaysay hooyadeed guriga ay dabada uga saartay waxa ay doonayaan ubadkaygu inay mar labaad baabaan inay inanta iga qabtaan baasaboorradeedana iga keenaan laba hablood ay gaaladu iga kaxaystaan anigoo cimrada tagayana la xiray waxaan mar labaad baaq u dirayaa habar jeclo dhamaanteed حسن محمود حاجي موسى والله هذا warbaahinta ayaa ugu baaqay bulshada xukuumadda culimada islaamka cid kasta wax ka qaban karta in baasaboorada caruur u dhalay looga qaado caruurta u dhalay hooyadooda oo joogta dalka dabadiisa baasaboorada uu diiday caruurta sida uu sheegay xasan xukuumadda iyo culimada ugu baaqay in lagala shaqeeyo sidii aan caruurta loogu celin lahayn qurbaha uu sheegay inuu kala soo guuray u keenay dalkiisa hooyo dhanka kale wuxuu fariin u diray ehelada gabadha uu sheegay xasan wuxuu ka waramay dhibaatada jirtay sidee wuxuu dhaceen waxaanu yiri magacaygu waa xasan maxamuud xaaji muuse dhamaantiin aad baan idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intii hore ula socotay falkii ugu dhacay 2 sano ka hor 22kii inanteedii caashay dhimatay 29kii Ramadaan bishii May 5teedii waxaan maanta ilaahay nimco igu sugay inaan joogo wadankaygii hooyo magaalada Hargeysa dhamaan caruurtayda ay dhan yihiin ilaaha halka iga soo saaray ayaan ku xamdiyeeyaa maalintan inantayda meedkeeda ka soo qaaday Holan ee aan ku aasay magaalada Sheekh dib uma aanan noqon maanta ilaahay alxamdulillah ubadkayga gacantay ku jiraan waa ila joogaan waxaan dawladda Soomaaliland iyo Soomaalida kala ka codsanayaa gabadha ilmaha dhashay oo iyadu qurbaha aad u jecel diidayna inay baasaboorada caruurta keento wadankooda ay joogaan diintooda ay bartaan marar badan isku dayeen ku qanciyo dadka ay ka dhalatay aadamadoobana ay ku qancin kari waayeen igana dawsaari waayeen maanta waxaan ka codsanayaa madaxda Soomaaliland ugu horeeyo Musabixi Cabdi madaxweynaha sharafta leh waxa weeyaan Maxamed Kaahin oo abti igu beegan maadaama aan ahay nin raabinin dhalay ahna nin musaacadala waxaan maanta ka codsanayaa dhamaan inta magacayga iyo muuqayga garanaysa anigu Xasan Maxamuud Xaaji Muuse dhacdadii hore naxdinta lahaydna ay igu dhacday inantaada halka ay garya maglaan ugu dhimatay iyadoo marka horeba 18 caruurtayda aan keenay aan rabay inaan diinta barto wadankooda ay joogaan markii horena halkan anigu aan ka kaxeeyay balse niman iyo abtiyo aadan madooba ah oo inanta familkeeda ay ugu qanciyeen iguna dhaarteen inay wixii ku dhacay mas'uul ka noqonayaan taasna ay sababtay islaanta iyo habaryarka ah deeqa weydar iyo walaalkay Maxamed Maxamuud Xaaji Muuse oo xilibaan dhacay ahaa gobolka Murudajeex ay baasaboorradii qasabiga qaadeen ka bacdi 18kii wixii ka dambeeyay 2021kii inanteeda ay ku dhimatay 7 bilood banaanka ay wareegaysay hooyadeed guriga ay dabada uga saartay laba hablood ay gaaladu iga kaxaystaan anigoo cimrada tagayana la xiray sidii Cabdi Xaafid waraysiga hore way iga qaaday maanta waxaan joogaa wadankaygii hooyo waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed iyo diinta islaamka ku shaqo leh ugu horeeya khaasatan Sheekh Maxamed Dirir Sheekh Mustafa Ismaaciil inaan ubadkaygu marnaba aan iga noqon dhul gaalo maadaama aanan ahaynin bila adduunyo ah ilaahayna wax igu filan uu siiyay aabahayna uu ahaanin diinta aad u jecel waxaan doonayaa ubadkaygu inay joogaan gabadhaasna ehelkeedii ama dawladdu ay iga qabtaan nala kala mariyo sida ay diinteenu qabto waxaan mar labaad baaq u dirayaa inanta hoodan Cabdi Jaamac leeyahay oo leeyahay ubadkaygu maanta wadanka ay joogaan haddaad qof islaam tahay uma baahna inay noqdaan mana jeceliina dhul gaalo ubadkaygu mar dambe ku noqdaan ubadkayga waayo dhamaantood maanta haday iiga joogaan waa alxamdulillah waxaan jeclahay in waxa weeyaan inanta la iga qabto dawladana waxaan ka codsanayaa in xaqayga iyo xaqa ubadkayga iyo xaqa diinta islaamka ka saaran inay qaadaan waxay dhibaatada u dhacday inanta sidaan horeba ugu sheegay Cabdi Xaafid waraysigiisii Honkabel TV Sab TV iyo wax weeye British TV iyada ayaa guriga ka saartay maadaama ay single mother aniguna awood uma lahayn inaan ku qanciyo wadankan joogay markii dambana maanu yeeray dahab badan baan siiyay sidii way iga diiday markii dambana wax weeyaan aniga la dacweeyay waa la xiray 3 casha ayaa baaritaan la igu waday anigoo cimrada u socda kadib waa la sii daayay anigoo Sacuudiga ku maqan bay yiraahdeen inantii way isdishay sidaas ayay dhacdadaas ku dhacday caruurtu halkan ii joogtaa waa 7 iyo inan baaralay soo holan aan kaga nimiyo dhakhtarka taale sidaan horeba u sheegay waxaan doonayaa 7dan halkan ii jooga inay ubadkaygu ila joogaan dhibaatada waxa igu hayay iyada familkeeda waa inan aadan madooba ah oo habar jecel ah caruurtan hooyadood adduunyo la nama hayso guriga badan waan leenahay gawaadhi waan haysanaa alxamdulillah baan taaganahay ma garanayo maanta waxaan dhul gaalo oo ubad iga dhashay
iyada iyo reerkoodu way isku raacsan yihiin ha waxa ay doonayaan ubadkaygu inay mar labaad baabaan ma doonayo inuu ubad dambe iga xumaado diinta inay bartaan ayaan u baahanahay waxaan mar labaad baa ku dirayaa habar jeclo dhammaanteed inaynan taa iga qabtaan baasaboorradeedana iga keenaan macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha somtel ama dahabshiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba macmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121